dowladda UK ayaa digniin adag u dirtay muwaadiniinteeda u safraya magaalooyinka Muqdisho, Garowe iyo Hargeysa. Fariimo ayaana la dhigay eeraboorada caalamiga ee duulimaadyadu ay ka baxaan. Boodhadh ayaa qaarkood lagu dhajiyay oo boodhadh waaweyn ayaa lagu dhajiyay fariimaha la doonayo in ay dadka u safraya muwaadiniinta reer UK u safraya magaalooyinkaasi Muqdisho, Garowe iyo Hargeysa in ay raacaan. boodhadh waaweyn ayaa garoomada dhexdooda lagu dhajiyay 12 saac ee ugu dambeeyayna baraha bulshada aad ayaa loo hadalhayay. Fariimaha UK ay dhajisay ayaa ku soo aadaya xilli maamulada Puntland iyo Somaliland ay diideen dhaqangelinta qaadashada fiisaha dalku galka iyo fiisaga ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo rogtay isla markaana muwaadiniintooda ay uga digeen qaadashada fiisaha dalku galka iyo fiisaga loo yaqaan. waliba gaar ahaan Somaliland ayaa iyadu dhankeeda waxay sheegtay in dadka soo qaato fiisaga ama fiisaha dalku galka Soomaaliya in tallaabo sharci laga qaadi doono. dhanka kale Somaliland waxay hore u sheegeen in fiisaha dalku galka Somaliland laga heli karo UK, Turkey, Mareykan, Kenya, Ethiopia iyo waliba Taiwan. halkaana ay muwaadiniintoodu ay fiisa dalku gal ka qaadan karaan. haddaba maxaa soo kordhay? fariintanse maxay uga dhigan tahay maamulka Somaliland? hawada Soomaaliya yaa maamula. Somaliland amarkeedii 11 bisha November ayuu dhaqan galiyaa ay lahaayeen diyaaradaha ay la hadlayeen. ma dhaqan galay? hawada Soomaaliya maanta waa sidee? maxay dhinaca kale Puntland ka tiri fariimahan caalamiga ee markaasi wadamada waaweyn ay dhigeen garoomadooda? iyadana waa soo qaadan doonaa, waa dul istaagi doonaa. soo dhawaada aragtidina igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay maalmihii ugu dambeeyay hadalaynta ugu weyn waxay ahayd maamulidda hawada Soomaaliya oo ay isku haysteen dowladda federaalka iyo maamulada Puntland iyo Somaliland oo ayagu qaadacay oo sheegay in aysan u hoggaansamaynin awaamirta dowladda ee la xiriira fiisayaasha dalku galka iyo waliba habraaca dadka u soo dhoofaya kuwa ka dhoofaya Soomaaliya. Puntland horay bay u diiday iyadu dhinaceeda waxay sheegtay in wasaaradda arrimaha gudaha ay bixin doonto fiisaha dalku galka oo aan arrival u yahay oo garoomada gudahooda lagu siin doono fiisaha dadka imaanaya. deganaanshaha sidoo kale tan iyagu ay bixin doonaan. dadka bad iyo bari iyo waliba cir ka soo galana aysan qusaynin fiisaha ay wataan ee fiisaga. hadday wataanna ku kale in laga qaadi doono oo markaasi lacagtii ay bixin doonaan fiisa dalku galana la siin doono. dhinaca Somaliland dhinacooda iyagana waxay sheegeen inaysan qusaynin fiisaha dalku galka Soomaaliya iyo fiisaga isla markaana muwaadiniintooda aysan qaadan karin. aysan waxa weeye ciddii ku soo gashana Somaliland ku soo gashana tallaabo sharciya laga qaadi doono. garoomadoodana fiisa markaasi aan laga ogolayn amaba fiisa dalku gala aan lagu soo geli karin. waxay sidoo kale la hadleen diyaaradaha qaar ka mid ah sida lagu baahiyay muuqaal ay ku sheegeen markaasi inay si toos ah ula hadlahayeen diyaaradaha duulimaadyada ku taga ama diyaaradaha markaasi ka dega Hargeysa iyo Berbera. waxa ay uga digeen inaysan fiisa dadkooda lagu xidhin. waxaa dhinaca kaleeto ay warsaxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen in uusan qusaynin fiisaha dalku galka muwaadiniintooduna fiisa dalku gala oo Somaliland ay leedahay ay ka qaadan karaan wadamada Turkey, UK, Mareykan, Ethiopia, Kenya iyo Taiwan. intaaba inay ka heli karaan fiisa dalku gala oo markaasi Somaliland ay leedahay oo aan loo baahnayn fiisaga Soomaaliya dalku galka loo baahnayn. haddaba intaa markay dhacday dowladda UK ee waliba sida weyn maamuladu ay ugu dhaadanayeen isku haleynayeen baaba war soo saartayba fariimo iyo waliba boodhadh baa lagu soo dhajiyay. boodhadhka intariga meelaha laga galo boodhadh baa lagu soo dhajiyay. boodhadh waaweyn oo fariimo xumbaarsan ayaa lagu soo dhajiyay oo markaasi garoomada caalamiga ee UK baa lagu soo dhajiyay. boodhadhka waxaa ku qoran travel notice visa requirements passenger traveling to Hargeysa, Somaliland, Muqdisho, Somalia, Garowe must hold by then a valid visa period to departure. inay waxa weeye ay qaataan baa la yidhi. waxaa khasaba inay qaataan fiisaha inay qaataan. linkigii baa loo soo dhigay. xataa linkigii ayaa loo soo dhigay. waxay leeyihiin oo kale hoos ay ku dheheen will not be accepted by them for travel. for travel by then
oo aan wadanin e-visa aan wadanin marna lama aqbalayo. linkiibaa hoos loo dhigay. dadkan waxaa laleeyahay habraaca saxda mara. kadib markii muran uu imaado hawadi laysku qaqabsado sheekadii waxa weeye meel walba gaadhay oo safiiro loo dirdiray oo codsiyo ay direen maamulada oo ay xoogaa codsanayaan anaga e-visa ayaana lagu xidhiya oo dadkii lagu xanibaya garoomadii oo rafaadeen oo wareer u dhacay. boodhan baa loogu soo dhejiyey. boodhan ilaan fariin loo diriyo hadal waa aqbali waayeen. boodhan dadka waxaa layidhi procedureka raaca baa layidhi, halkaa raaca baa layidhi. ma aqbalayna bay dhaheen fiisa la-aan iyo fiisa la-aan Soomaaliya garoomadanada lagama baxayo oo loogama baxayo wadamo waxa weeye magaalooyinka Muqdisho, Garowe iyo weliba Hargeysa. saddex magaalo ayay duulimaadyada caalamiga internationalka ay ka degaan. marka raalli ahaada baa lagu yidhi. xaalku waa adkaaday marka. hadda boodhan ba hadday marayso boodh in la iskugu dhajiyo macnaheedu waxay ka turjumaysaa in uu dhaqan galay amarkii dowladda federaalka ee ahaa e-visaga iyo weliba maamulidda hawada iyo cidda xaqa u leh inay maamusho. warya xaal hawada hadda waxaa maamulaysa Soomaaliya oo si buuxda u maamulaysa. ma jiro wax interruption amaba wax khatar ah oo hawada Soomaaliya ku jirta ma jiro. awaamirtii Somaliland ay soo saareen ee la xidhiidhay in diyaaraduhu ay u hoggaansamaan awaamirta ka soo baxaysa hay-adda duulista iyo hawada ee Jamhuuriyadda Somaliland waa si hadalka u dhigeen meesha ayay ka baxday. waxaa si buuxda hawada Soomaaliya u kontroolaysa